mid ka mid ah dukaamada ku yaala magaalada Oslo oo xatooyo loo geysanayay ayaa shaqaalihii dukaanka ka shaqaynaya midkood waxa uu isku dayay in uu joojiyo tuugga isku dayay in uu dhac ka geysto dukaankan ku yaala magaalada Oslo. Hayeeshee tuuggii ayaa torrey oo la soo baxay shaqaalihii waxaana goobtii ka bilowday dagaal gacan ka hadal ah oo dhex marayay shaqaalihii goobta ku sugnaa iyo ninkan tuugga ah oo doonayay in uu dhaco dukaankaasi. Ciidamada booliska ayaa si dhaqso leh ku soo gaaray goobta uu shilkani ka dhacay oo ahayd dukaanka Rema 1000 oo ku yaala Torgata ee magaalada Oslo. Waxa ayna booliska si degdeg ah ku xakameeyeen xaaladii dagaal ee ka taagneyd dukaanka Rema 1000 ku yaala magaalada Oslo. Dadweynihii ku sugnaa meesha ayaa sheegaya in dhaqso ay ku soo gaareen ilaa iyo 8 gaari oo kuwa ciidamada booliska ah oo gurmad degdeg ah la soo gaaray goobta uu shilkani ka dhacay. Waxa uuna sheegay taliyaha howlgalka booliska Oyvind Hammervold in arrintani ay ku soo baxeen oo ay si degdeg ah u soo gaareen goobtan uu dagaalka gacan ka hadalka ka dhacay oo ahayd dukaanka Rema 1000. Waxa uuna intaa ku daray in torreyda uusan isticmaalin ninka oo aysan jirin cid wax ku noqota goobta. Waxayna intaa ku darayaan booliska in marka la qabto ninka dambiilaha ah boorsidiisa laga helay baangad weyn ama faaska oo aan la ogeyn waxa uu u adeegsanaya ama doonayay in uu isticmaalo. Booliska ayaa ninkii tuugga dambiilaha ahaa goobta ka kaxeeyay waxaana lagu xiray xabsiga halkaasoo su'aalo lagu weydiinayo iyadoo goobjoogayaashana ay booliska su'aalo ka weydiiyeen sida ay wax u dhaceen iyo goobta waxa ka dhacay. Waxa ayna booliska intaa ku dareen in ay dhacdadani ka fureen kiis dambiilahana uu hadda xabsiga ku jiro iyagoo sheegay in aysan jirin wax dhibaato ah oo ka dhacday dukaankaas ama dhaawac soo gaaray shaqaalihii ka shaqaynayay. Halka ay wararka ugu doorkaroor idinkaga imaanayaan waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdulaahi Shiine.